shirweynaha koobiyo tobnaad ee wadatashiga xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka soo qayb galeen in ka badan 3,000 oo ergooyin ah oo ka kala socday 12 gobol 6 maamul magaalo 93 degmo iyo 1,500 oo tuulo oo deegaanka Soomaalida Itoobiya muddo 4 maalmood ahna socday ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Raasa ee gobolka Afdeer. shirweynahan ayaa intii uu socday waxaa si weyn looga wada hadlay guud ahaanba xaaladda deegaanka waxqabadka xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya 10 sano ee ugu dambeeyay iyo sidii uu ahaa horumarka iyo nabadgelyada deegaanku 10 sano ka hor taas oo si qoto dheer la isku qiimeeyay la iskuna qaatay. sidoo kalena mid ka mid ah jandayaasha ugu muhiimsanaa ee shirweynahan koobiyo tobnaad ayaa ahaa haybsooca ay qabaylada kale ee Soomaalida ay ku hayaan beesha Gabooye taas oo shirweynahan lagu cadeeyay in aysan dhaqan ahaan diin ahaan iyo dadnimo ahaanba aysan jirin meel ay kaga liitaan Gabooyuhu beelaha kale ee Soomaalida. arrintan xaqraada beesha Gabooyena ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tilmaantay mid aan sal iyo raatoona lahayn oo ku tiri ku teena ah. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan leeyahay shirkan ilaahay uu nagu guuleeyay 100% aad buu nagu guuleeyay marka waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ilaahay mahadi. waxaa tusaale ah 500 oo sano wixii la sixi lahaa 500 oo sano ama ilaa intii la jiray galabta la saxay waa arrinta ku saabsan Gabooyaha ee beenta ahayd waa taariikh hal la qorto meeshii waxa weeye arrintan qabiilkan Gabooyaha iyo waxa la sheegay lagu kala saaray ee waxa weeyaan dad dhan oo la gumaysi laga qaaday waa shirkan hal ogaado taana taariikhda maanta taana hal ogaado waxa weeye arrin aan yaani hore u furfurmi lahayn ayaa furfurantay hatta been fara badan oo qarsoonayd baa fashilantay dad dhan oo abtirkiisa la qariyay ayaa la soo saaray oo haddana la gumaynayay wax ka weyn oo la qaban lahaa ma garanay maanta wax ka weyn oo la qaban lahaa ma garanay intaan shir qabanayna kanoo kala ma arkinba balse haddii laga tago waayo inuu yahay nin meel ka tagay oo aan meel laga garanaynin tagay iyadoo ay jiraan kuwa ka mid ah qabaylada Soomaalida iyo kuwa iskoodu taagan oo nasab Soomaali dhalada ah falanqayn dheer kadibna waxaa shirweynahani lagu cadeeyay inay tahay arrintani sababo kala gedisan oo la xiriira dhaqanka Soomaalida marka qof meesha uu deganaa ka guuray una guuray meel aan laga garanayn taas oo loo aqoonsado mid garan waaya. tusaale ahaan qabaylka la sheegay inuu ka mid yahay Gabooyaha dega gobolka Jarar gaar ahaan magaalada Dhagaxbuur ee dhaho reer Wardheere ayaa waxaa shirweynahani lagu cadeeyay inuu taariikh ahaan ka mid yahay qabaylada Soomaalida ee dega gobolka Doolo gaar ahaan Wardheer balse kadib markii uu dilay suldaankoodii lana mooro duugay uu sidaas ku soo cararay kuna yimiday magaalada Dhagaxbuur kadib markii la garan waayayna loo bixiyay reer Wardheere waxaana xusid mudan in dambigii uu Wardheer ka soo galay awgeed uu isna sidaas isku qariyay oo uu qaatay magacii Wardheere ee garanwaaga loogu bixiyay. annaga mareexaanka qabiil la yiraahdo hawraarsame yaan lala dhashay waxa weeyaan maxamed amaareer hawraarsame amaareer talxa amaareer maxamed amaareer iyo talxa amaareer xalaal baa laga dhigay maxamed amaareer xaaraan baa laga dhigay oo waxa la yiri guurka waxa weeyaan dawaa la karantiile waa niman mareexaan oo cad sidaas weeye sida loo qaato xukuumaddu u qaato aqalku u qaataan annaguna u qaadanaysaa waa niman nala dhashay waxa lagu takooray sida Axmed sheegay nin bay dileen Maxamed Daawud la yiraahdo markay dileen hantidii baa laga dhacay waxay sameeyeen waxa la yiri sina wiilto baqtiga la xalaalayna la yiri neef ari haday keesay waa laga qaataa sidaas aan nimanku u kartiiray sidaas ay go'doon ku noqdeen hadda anagu nala degan yihiin hawrarsan waa degan yahay waa qabiil mareexaan ka badan weey oo jiri dhan ah oo degan deegaanka mareexaanka hadii degan gedo waa degan buulaha ayaga degan buulaha waa niman laba hadli karo waxa weeyaan reer Wardheere waa niman Maxamed Amaan reer way dadkii waa la qaybsaday annagana reer Wardheere waa qoyska noogu jiritaanka badan weey oo aan ku faano xaqiiqda marka la gaaro sidaas darteed madaxweyne adiga gurigaba waxaan ugu bishaareynayaa reer Wardheere meel bay ka soo jeedaan anigu hadda ogahay meeshaasoo mareexaana nimanka inaan cadeeyaan doonayo waa reer Wardheere waayo wuxuu ka yimid xagga iyo Wardheere ninku marka in la dilaa la damcay ninbuu soo dilay soo sheegeen waliba xagga nagana ninbuu ku dilay ani awowgay waxay isdhexsoo baa sabati la fuulay waa wax la yaqaano lama dilay buudi sidaas waa niman mareexaana
oo la yaqaano waanu ka gudsanay eega shulaac baa ka gudsaday rag badan baa ka gudsaday carruur bay noo dhaleen niman hay'ad dalal guuleeda oo dhiig iyo dhaqan kala aan wada bixino weeye waxaan la isku haysan baan ka hadlayaano oo ah nimanka la yiraahdo hawraarsame waxay la dhasheen 4 ilmo ama reer la dhasheen wardheeraha uu sheegay ninka la yiraahdo magaciisa muxuu ahaa waa niman hawraarsama weeye waa niman aan qaybta galin weeye qof walba oo ogsoono waa niman marxaana weeye nimanka waxa lagu faquuqay hawraarsamaha waxay dileen boqorkii marxaan bay dileen ayadoo ay jirto maxaa looga dhigay ganaax baa waxa lagu sameeyay mood iyo nool wax allaale waxay haysteen baa laga dhacay inta looma hari kare maxaa la sameeyaa waxa la sameeyaa hala takooro waa maxamed amaan reer iyo hawraarsama amaan reer iyo wada amaan reer baa ku jirta talxa amaan reer baa ku jirta sidaa weeye sidaa darteed anagu bari dhaweyto waxaan bilownay oo xaqiiqo ah inaanu gabdhaha kala guursanaanu bilownay hadda oo xaqiiqa qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda Jigjiga ayaa hore u sheegay in beesha reer kuul ee degta Soomaaliya ay ka soo jeedaan beesha degta magaalada Jigjiga ee Bartire balse arrintaas ayaa waxa gaashaanka u daruuray salaadiinta degmada Gaashaamo iyagoo sheegay in beesha reer kuul ee degta Soomaaliya ay ka soo jeedaan beesha Habar Yunis qabiilka makiinadaas sheegtay Kuulbeer ma aha ninkii cali cabdiise uu sheegtay Bartire ma horta waa niman isaaqa weliba waa niman Habar Yuunista waa niman Habar Yuunisa waxa weeye magacooda la yiraahdaa Kuul Carre Siciid Garxajis Sheekh Isxaaq abtirsiintooda horta waa sida waxay dalka kaga tageen dil bay kaga tageen laakiin waxaanu ku ogeynay iyagii Damal Muuse Israacay Damal Muuse soo noqday sidaas iyagu nagaga maqan yihiin Kuulbeer waa Kuul Carre Siciid sida uu sheegay suldaanku waxay la dhasheen Carre Siciid waa ilmo Carre Siciid Muuse Carre la dhasheen Isxaaq Carre la dhasheen waxa laga qaaday meesha beer la yiraahdo isagoo ilmo yara xaggaasa la geeyay kadib way soo noqdeen mar dambe burca yimaadeen burca shir baa lagu qabtay waxay yiraahdeen inaanu Carre Siciid Garxajisnaay miyaa nagu diidan tihiin mayada la yiraahdo waa loo ogolaaday magaalada dhinac naga dajiyay yiraahdeen waa la soo dhaweeyay marka arintaas waxa la yiri guurka inta yaree kale faraqa yaree jiray wuxuu boohaa guurka idinku kala guursada oo dadka kale maaragtay aanan garanay idinka qabiilkan waan idin garanaynaa inaad Habar Yuunis tihiin Carre Siciid tihiin Kuul Carre tihiin waanu garanaynaa taa xagga guurka oo idinku marka hore isku ekaada sababtaas uu dib u dhac u ka yimid niman loo abtiriyay oo la qaatay oo muran ka jirin weeye cali cabdi arinta waan ku haysanaa hayska sax cali cabdi arintaas sidoo kale shirweynahan ayaa lagu xaqiijiyay mid kamid ah qabaylada dagagoday oo ay walalaahayeen balse bahgooni ah oo bilow ilaa iyo dhamaad cid kasta ba taqaano in si dhaxalka bihi looga qadiyo bahgooninimada lagu faquuqay Axmed Cabdallah baan anigu ku koowayaa sheekadayda gabadh qurux badan iyo duqii Cabdallah guursaday kolkuu guursadayna gabadhii lagama daba imanin wax yarad ka doonayana wuu waayay mar haddii la garan waayay aabbuhu uu yar cuqdaysnaa uu ka habaartamay wuxuu yidhi wuu sii sheegay wiilka hooyadii la garan laayahay ninkii iga duwow soo galay ka gaabo saasay habaarku ahaa kolkuu duqii dhintay ayaa xoolihii ku yaraadeen dadkii qaybsanayay xaasadna meel walba wuu joogay anu waxaan oranayaa dadkii waagaa joogay ee uu Cabdalla dhalay ama walaalaha la ahaayee reer Maxamed iyo Cawdaaq lahaa ma ayna difaacin wiilka yarka waxaana ku sifaynaya Allah naxariista hadda way dhinteen in sifada xasadku uu diyaar ku ah ha yaroo ka faalinaya asbaabtii marka waxa keenay annagu dhowr awiyadaano anu hadda waxaan ku abtirsadaa magaca hebelka lix awow waan ku abtirsadaa iyo in garab socod ilaa 10 waan gaarayna intaaba waxay isku dayeen in hawsha wax ka qabtaan waxa ka qawan mujtamaca ka xoog badnaa waxa weeye noloshu waxay keentaa aqligu inuu koro ayay keentaa horumarku wuxuu keenaa dadku intay wax bartaan inay gartaan khaladkiisa saxba inay kala gartaan waxay ina gaarsiisay xadaaradan iyo aqoontan waxayna gaarsiisay ruux ka fiican inay jirin marka waxaan nidhi war xagee ugu dhow
riximka inaad xidhiidhiso waa wax ilaahayna faray weeye annaga waxaa weeye qoys ahaan kolkay sii socoto oo isrifanto oo soomaali ka tagto oo sii socoto xil gooni ah ayaa wuxuu naga saaraa inaan annagu marka hore xidhiidhino marka dambena aan soomaali u dayna ayaa xilka naga saaraa waxaa weye markan waanu shiray go-aan baanu ka gaadhnay 13 suldaan ay beesha leedahay iyo ugaaskaa go-aan ka gaadhay oo go-aan ka qaatay in riximkii 200 sano la jaray in la soo celiyo ayaanu go-aan ka gaadhnay tiknikada bilownayna waxaa ka mida marka waxaa ka mida 13 suldaanba 13 gabdhood in ay bixiyaan anigii oo masalaya ugaaskiina ama booskii ugaaska fadhiyana gabadhii ugu horeysay oo dhalay curo oo caruurtayda ka mid oo 16 jira inaan bixiyo waa ku dhawaaqay anaana ugu horeeyay 13 suldaanna way iga daba dhawaaqeen marka arrintii Axmed Cabdalle oo aabihii uu ku naanaysay Golcadde sidaasayna u xallisantay sidaasaa riximkii maqnaa uu ku soo noqday dhibaatadii lagu hayn jiray sidaasay ku baabaaday maanta waxaa weeye waa qoys ehelkoodii iyo gurigoodii iyo qaraabadoodii iyo qoyskoodii ku soo noqday oo maanta qayrkood la mid awey anigu waxaan ahay suldaankii Axmed Cabdalle siduu ugaasku u sheegay Axmed Cabdalle oo muddo badan xaqirnaa oo dulmanaa walaalahoodna hiil iyo hooba tulmaga la garab taagnaa oon ka hadhin ayaa maanta Allah subxaanahu wa tacaala qalbigooda wuxuu ku soo riday inay walaalahoodii dulmanaa dulmiga ka qaadaan ba Allah subxaanahu wa tacaala qalbigooda geliyey arrinta aad baan u soo dhaweynay ilaahay baa mahad iskale tolomoge iyo ugaaska kowka ku mahadsan guddi dhalinyaraha iyo ugaaska arrintaa ka soo shaqeeyey xaflado waaweyn baa la qabtay 13 jilib walba intuu 3-4 haad qalay oo xaflad gaara dhigay oo annagana lagu xambaaray ayaa fagaaraha gabdho lagu meheriyey suu ugaasku u sheegay salaadiinta gabdhahooda arrintaas saasay u dhacday aad baan ugu farxanay walaalahano sida ay yeeleen maanta ee qiirada leh in lagu daydana way mudan yihiin waxaan leeyahay dadkaa kale dulman dee dadku dhulkama foodhicin ninba meel buu ka dhashay anigu waxaan leeyahay dadka abtirkiisa lahayana sida tolomagoo kale qaata ha la yidhahdo dadkii abtirkiisa lahayo ninka abtirkiisu qarniga hore mudo uu fakadayna dee soomaalida u tashataan leen anagu dhinaca kale qaar ka mid odayaal dhaqameedka reer Garbo ayaa cadeeyay in degmada Garbo ay degaan reer Aamin oo ka soo jeeda reer Axmed Cabdalle meel dhow baa reer Aamin laga soo tuuray oo Axmed Cabdalle noqdeenba guurkana waanu bilaabaynaa darbigana waanu jabinaynaa dadkana in islaamnimadu ay hal mid tahay yaanu cadaynaynaa horta annagu nasiib wanaag reer Aamin waanu naqiinay wax naga qarsoonaa ma ahayn taasi horta waa midaas waxayna ahaayeen hormuudka deegaankaas weeye waa hormuudka deegaanka waa qoyska ugu adag hadda waxay leeyihiin soonka oo dhan iyagaas taraawiixda tukiyada dhalinyaro hadda ka soo baxday baa tukisa waxaa noo laaban hadda inaanu annagu isguursanno baa noo laaban waxaa intaasi dheer oo shirweynahani lagu cadeeyey in gaboyaha dega magaalada Jigjiga qayb ka mid ah ay ka soo jeedo mid ka mid ah qabaylada wardheer dega halka qaybta kalena ay ka soo jeedo beelaha dega gobolka City arrintan takoorka in badan baan akhriyay meelo badan baan isku daynaa wax ku ogaado takoorka ama segregationka waxaan af Ingiriisiga lagu yiraahdo caalamka meelo badan buu ka jiraa tan Soomaalidu waan isku daynaa wax badan ku ogaado dadku abaara dhici jiray waa la daaduumi jiray waxaad ka tagaysaa degaankaaga ama dambi bay galayaan oo way tagayaan oo way taloobayaan oo dad kale u tagayaan marka meel aan laga garanayn bay tagayaan waxaan aqaanaa qolo bartira oo gaalkacyo tagtay
waxaa la yidhaha kuulbeer iminka lama guursado ciddii garanaysaa garanaysa lama guursado waa niman bartiraa xamar baan ku arkay way abtirsanayaan isku abtirsiin baan noqonaynaa waayo waxaanu haynaa dee isgaadhsiini ma jirin gaadiid ma jirin cid taqaanay ma jirin qofku 100 kilomitir buu socon karayay markaa ninka bartira markuu gaalkacayo tago dee halkaa nolol waa looga ogolaanaya dabeetana qofkii uu noolaanayaa wuu tarmayaa xaas buu watay dee ilmihiisii laakiin lama garanayo waa ninkaa saboolka ah taas waxay keentay markaa generationkaasi aan la garanayn in iyaguna dee isguursadaan saasaa markaa magacu ugu baxay sidoo kale hawle aniga aabbahay wuxuu ii sheegay inay niman majeerteen oo reer maxamuuda yihiin allah u naxariisto suldaan cali xuseen wuu shaqale wuu joogaa in badanna wuu iga maqlay anuu adeerkii baan u yiqiina cali xuseen wuxuu aabbahay u tarayna aabbahay wuxuu cali xuseen suldaan cali xuseen aabbahay u tarayna cid u tartay ma jirin saasaanu dad tola u ahay laakiin waxaa naga adkaaday oo boondkaa waanu jebin kari weyne iyagoo saasa inaan u aqoonsano dad majeerteena inay yihiin may dhicin madaxweyne waxaan leeyahay kow nimankaa hawle ha loo aqoonsado maanta waynu dhannahay dowladdii soomaalida iyo degaankeediiba kow recognition aan siino niman majeerteena inay yihiin anigoo ku hadlaya magacii bartire sulubna wuu iga dambaynay suldaankii bartirow waanu u aqoonsannahay niman majeerteena inay yihiin gabdhaha iyagana waan siinaynaa marley annaga nimankan hawle waa niman bartire ahaayeen iyagoo reer maxamuuda oo boqortooyadii daarooda ayaanu ka guursanay naga guursanayaan arrintan hawle dacwad baan ka leenahay annagu haddaan nahay ciise waxay la aamusan yihiin gobolka shiniilaanu ma garanayo reerka holle la yidhaahdee ciise dambal gala halkaabay ka soo guureen iyaguna way aqoonsan yihiin baadhis ha la sameeyo reerka fuurlabe iyay galaan waa holle reerkaasi kalna waa holle labadani beelood oo muran ka muujiyey haybta ay ka soo jeedaan beesha hawle ee degta magaalada jigjiga ayaa waxaa kala saaray oo xaqiiqada u kala sheegay mid ka mid odayaal dhaqameedka deegaanka suldaanku uu khalday geesoolo maahe waa geesaale wayna joogaan waana rag ciisa sidaa u sheegay weye cabdijibriilna sidaa u sheegay wey odagana uu taabtay waxa weeye reerka waa reer fuurlaba ah waa saaciib waa reegeesaale reegeesaala la yidhahdaa ma wada dhanno oo hawlaha jigjiga yaalloo dhan maaha waa qayb ka mida weeyaan waxay ka soo guureen nawaaxiga meesha la yidhaha baraaq dhiig bay galeen dhiiggii baa lala bixin waayey markaasay soo guureen waxay ka soo guureen eriyada baraaq iyo shiniile iyo harawi iyo eriyadaaba ka yimaadeen asalkoodu waa sidaa waa la yaqaanaa markaa waan kala maranaynaa un innaguna intii nin bada qaadanaysa hawle waa niman hawlqaadsina waa niman hartiya waa niman kamal hawe abtigsiyoob intaasu taga kama hadlayo qolo kale hawle waa niman majeerteena boqortooyada majeerteena ah dandaarood ah waa reerkaas weye annagu dad takoori mayno dad kalena sheegan mayno hawle niman majeerteena weeye salaadiintaa sheegtay isku soo wada duuduub oo arrintani takooridda beesha gabooyaha lagu hayo ayaa waxaa shirweynahani la iskula qaatay inay tahay arrin aan sal iyo raatoona lahayn balse ay tahay marin habaabin sababo la xidhiidha dakano dhaxal qaybsi iyo soomaalida oo ahayd dad sabool ah oo isku dili jiray hantida yar ee haysteen ugu dambayna shacabweynaha deegaanka soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda deegaanka soomaalida Itoobiya oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa ay fariin u direen soomaalida geeska Afrika iyo kuwa caalamkaba inay arrintani xaqiraadda beesha gabooyuhu ahayd khalad cad oo ay abayaasheen horey u galeen maantana la gaaray xilligii la sixi lahaa sidaa daraaddeedna looga baahan yahay dadka soomaalida inaysan sii wadin qaladkii ay abayaasheen horey u galeen iyadoona dhanka kale beesha gabooyo looga baahan yahay inay ogaadaan inay yihiin qabaa'il Soomaaliyeed oo nasab dhalaya loona baahan yahay inay la yimaadaan aaminaad iyo kalsooni weyn